hooyo Farxiyo Cali Cabdi oo ahayd hooyo 5 caruur ah haysata isla markaana gurigan iga dambeeya degareed ayaa maanta waxa ay isku gubtay isla markaana ay ku geeriyootay qolkan iga dambeeya waxaana loo sheegay in 5 caruur ah oo ay dhashay oo mid yar oo inaas nuujinaysa uu ku jiray in dabka ay ka badbaadeen dadka qaar waxay sheegayaan in gurigan qolkan iga dambeeya ay isku gubtay hooyadu hooyo Farxiyo Cali Cabdi oo caruurteeda ninkeeda iyo qoyska ninka qabay uu ka dhashay gurigan ku yaala xaafadda Kaabagoday degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho kula nooleed ayaa waxa ay qaar ka mid ah dadka xaafadu ay noo sheegeen in maanta duhurkii ay qol isku soo xirtay isla markaana ay isku gubtay oo ay u geeriyootay dabkaasi ay isqabadsiisay iyadoo sida ay hadalka u dhigeen balse ka hor inta aysan isgubin ay qoyska ay la nooleed iyo ninkeedaba ay ka dalbatay in dadku ay iska cafiyaan iyadoo aan sababaynin dhibaatada haysata dhanka kale dad badan ayaa waxa ay ku soo baxeen qaylo iyo dab mar qurax qabsaday guriga ay marxuumadu deganeed oo ay ku jirtay isla markaana ay hoos ka soo xiratay iyadoo la isku dayay in la badbaadiyo balse taasi aysan suurtagelin maadaama qolku uu hoos uga xirnaa marxuumadda mar dambana qolka oo darbiga laga jabiyay laga soo saaray meydka marxuumad Farxiyo Cali Cabdi oo jirkeedu uu aad u gubtay dadka qaar ayaa waxa ay sheegeen in maalmihii la soo dhaafay ay stress dhinaca maskaxda ay dareemaysay waxa halkan kaga muuqanaya gubitaanka guriga hooyo Farxiyo Cali Cabdi ay ku gubatay dhinaca kalena qaar ka mid ah dadkii dariska la ahaa iyo kuwii ku soo baxay dhacdadan ayaa ka waramaya dhibka meesha ka dhacay iyo dhacdadan xanuunka leh walaasha meeshan ku dhimatay oo caruur leh ah والله تحسيداس آذا ونحني ويابنا مرك ما أنت الحمد لله وحي إلهي كان ما هتعمه نبكى صادعي والله أنا قرت قبل واحد جرائي وحاسكم أوجين شل حتى وينو إماد حافظين إنه إمادي بس مرك ساك هواي سوا عادي إماوي ده هذي حاجة مشكولة جرو مرك سوين وحيد هذا مكو إماكر يبريا كو إيمانا لكن أباكو صدرة أبي على صدري انتي ابو ودد كسو سعدنا غوري دبابك كعبو الحمد لله عيالكي way ka badbaadeen laakiin ayadu waa dhimatay ilaahay u naxariisto wallahi horta ayada aan barbalaan familiin oo iska heystay macna qolada isku la noolaayeen dad isku fiican ma ahayn laakiin alxamdulillah hadda aan ajishi waa iska dhamaatmo waa ku dhimatay ayada isku gubtaal dhahay 5 caruur ay haysatay 4 wiil iyo hal gabar ay haysatay midka ugu yarna 2 bilood uma leeyahay ayada horta maanta musiibo aad u weyn dhacday oo ka dhacday xaafadda Kaabagoday maama isgubtay saahada macnaha aniga warka uu nagu soo gaaray goobtii markii tagnay waxa la kulannay iyadoo la bixiyo macnaha qolka la galiyay maamada waxa la sheegay in macnaha saaki horeyba macnaha ay saygeeda la wadaagtay in dariska ay macnaha iska cafiyaan dariskuna uu waco asigana uu shaqo iska aaday isla markiina ay sameysay in cunug umul oo ahaa inay iska soo bixiso maamo kale dariskeeda u dhiibto كبعدين يقول كي اسكو سحرتو كبعدين هوش سلاس ay ku dhacdo sida hadda macna dadka ay sheegeen marka tagnay ayaa sidaas ah لأن laakiin sida macna boqolkiiba 90 wuxuu badan tahay in maamada iyadii macna musiibadaas gacanteeda isku geysay waxa alla ugu bariyana in macna janno uu siiyo anigana gadaasheeda Ilaahay nama fidnay marka waata bal jawi sidoo ahaa waxa tagnay aniga hooshii la wada tagnay gurigooda deminayo waxa ka qayb qaadanay demiska ay ka qayb qaadanay sidoo kalena waxa dadkii warka isla dhaxmarayna waxa kamid ah in maamadii iyada qolka isku soo xirtay oo macnaha ka bacdina ay hooshii ay qabatay marka marxuumad Farxiyo Cali Cabdi oo haatan ka geeriyootay 5 caruur ah iyo sidoo kale saygeeda ayaa waxa lagu la tukaday mid ka mid ah janaasada magaalada Muqdisho masjid ku yaala iyadoo lagu aasay mid ka mid ah qabuuraha ku yaala magaalada Muqdisho waxaana magaalada Muqdisho mudooyinkii dambe iyo duleedkeedaba ku soo badanayay dhacdooyinka ugubka ah kuwa la yaab kale iyo kuwa xanuun leh kuwaasi oo bulshadu la argagaxeen Cabdikariim Calaadan warbaahinta Goobjoog Muqdisho